السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا دمانتين أرضا كحر البيتشكا تيو بروفيشنال ستاريز أكاديمي جارهان أرضا فنفورة هل كان يدك رسوا عندهم تاني هل كان هي أي كور رسوا عندهم وحنا سو قد من دونا هدو أبكر على النقطة إكساسية ذا إكزامبل ذا كجرا جبتر ذا قادتان جارهان مادونيكا حساباتك سيدا فيزيكسكا حسابته مادونيكا كيمستري بيولوجي أنا معلمين كان يسوق قد من دونا هدو إلى يرادو marka waxaan rabaa maanta inaan marka ka shaqeeyo muuqaalkan aan ku soo qaato duu Abakar aan noqdo chapter exercise 1 yani chapter 1 exercise kiisa ayaan tagi doonaa page-ka waa page 43 la soo bax buugiina page 43 la soo baxa su'aasha koowaad waxa u dhacay marka sidatan use identity to find each exact value qiimihiisa saxda ah u hesho hadda meesha waxaan u siiyay waxaan la siiyay tusaale ahaan waxaana la siiyay cos minus pi over 2 alif anars waxaan rabaa inaan ka shaqeyno sidaan ogsoonahay coska minusta isaga qarinayo soo marka waxaan leenahay meeshaan waxay la mid tahay cos pi over 2 alif su'aashaas weydiinayna waxay tahay marka cos pi over 2 alif intay ka timid su'aashaas ayaan isweydiinaynaa waxay ka timaaday cos pi over 2 alif waxay ka timid waxay ka imaatay cos 3 pi over 2 alif oo laga jaray 2 pi over 2 alif yani pi over 2 alif intaanay ka timid soo marka waa isku yareereynayna waxaa leena meeshaan by 3 intana waxaa leena by 3 inta waxaa leena by 2 intana waxaa leena by 2 haddii aan sii furfurno waxay noqonaya marka cos inta da 3 u qaybi waa 1 haddaa pi ku dhufto waa pi intana sidoo kaleeto waxay noqonaysaa ayadana 2 alif dan 3 u qaybiyo waa 4 pi over 4 waa laga jaray inta da 2 u qaybiyo waa 1 waxaa meesha ka soo baxaysa pi intana da 2 u qaybiyo waa 6 waa kana marka cos minus pi over 2 alif saanay noqotay intaa may ku eg tahay marka maya way sii soconaysaa hadda markaa fiirsi madaanadan waxay u eg tahay cos a minus b u eg tahay cos a minus b qaabkee loo furfuri jiray haye waa taqaanaa cos a minus b waxaa loo furfuri jiray laba cos israacayo waxay noqonaysaa cos a cos b haddii meesha minus ay tahay inta waxay noqonaysaa plus sin a sin b marka hadda a waxaa kugu taagan pi over 4 b na waxaa kugu taagan pi over 6 ku bedela keliya bas oo maxay noqonaya marka cos haye pi over 4 pi over 4 laga jaray pi over 6 intaana furfuraya marka haye cos soo dheh pi over 4 ku dhacsan cos pi over 6 meesha haddii minus ay tahay waxay noqonaysaa balas ay noqonaysaa haye sin laba sin isla cayan sin pi over 4 haye ku dhacsan sin pi over 6 hadda qiimayaal ay u taagan tahay marka cos pi over 4 waa 45 waa cos 45 qiimadeedu wuxuu ahaa cos 45 wuxuu ahaa radical 2 over 2 oo ku dhacsan cos pi over 6 na waa 30 waa cos 30 na qiimadeedu wuxuu ahaa radical 3 over 2 balas dheh sin pi over 4 waa sin 45 waa sin 45 qiimadeedana waa radical 2 over 2 haye kusii dhacsan intan waxay noqonaya marka sin pi over 6 waxay la mid tahay sin 30 sin 30 qiimadeedu muxuu ahaa half ayuu ahaa يعني 1 over 2 كده حسمينا لبدا اسكول فوكر وراديكال 6 over 4 لغني 2 times 2 over 4 2 times 3 نا راديكال 6 خلاص ده انت راديكال 2 times 1 وراديكال 2 2 times 2 نا 4 حسمينا marka loo say ka qaado وراديكال 6 oo lagu daray radical 2 halkaas ay ku dhamaatay qaybta A meesha ay ku dhamaatay marka barnaamij kale waxa jiro ardayda fanfoorada aan kala shaqeeyno oo sanadkii hore baan ku soo shaqeynay oo la yiraahdo special form 4 groups ardayda waxaan ka caawinaa yani activity-yada iyo exercise-yada ku jira muqarrarada ay qaataan maadaama in badan ardaydu ka cawaadaan exercise-yada yani ku jira muqarrarka last year-na waxaan caawinay ku dhawaad 500 arday aan caawinay ilaa waxaan la soconay aan caawinaynay ilaa imtixaankii shahaadiga ay ka galaan marka adigana haddii aad tahay arday daneynaya fursadaas oo raba exercise-yada inuu helo ayagoo ka shaqeysa inuu helo rabo ka mid noqo
ardayda loogu magac daray ama gruubyada loogu magac daray form 4 special groups gruubyada sidee haddaba aad ugu mid noqon kartaa kaliya hal mar aad isdiiwaan gelinaysaa halkaa mar markaa isdiiwaan geliso gruubaa lagugu darayaa gruubka ayaa lasoo dhigi doonaa exersyada halkaasaad kala socon doontaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intana examplada ayaan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala pagekana shaqadiisu way socon doontaa asxaabtiina kusii meeshan gareeya videogan kan ahna like saara siina share gareeya meel boodooda ka joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu